ogtahay dhibaato kasta ama caqabad kasta oo maanta ku qabsanaysa in ay tahay waxa berrito ka dhigaya qof aan la loodin karin ama markaasi qof nolosha u bislaaday ama waaye araga ka waran haddii xanuunka ka cararaysa uu yahay albaabka awooddaada dhabta. dad badan ayaa waxay ka cararaan guuldarrada, shaqada badan iyo waxyaabaha la midka laakiin dadka ugu caqliga badan uguna xoogan adduunka waxa ay fahmeen sirtan aadka u muhiimka ah. qofna kuma xoogsanayo meel raaxa leh. birta waxaa lagu kuleeyaa waa dabka, murqahana waxaa lagu dhisaa oo lagu xoojiyaa waa culayska. sidoo kale dadka adkaysiga badanna waxaa dhisa caqabadaha iyo dhibaatooyinka ay kala kulmayaan waxa ay rabaan ee ay hiigsanayaan. haddaba su-aashu ma aha miyaad dhibaato la kulmaysaa, ee su-aashu waxa weeyaan haddii aad dhibaato la kulanto ma noqonaysaa qofkii xalin lahaa ee u adkaysan lahaa dhibaatadan. muuqaalkiina maanta waa qodobkii saddexaad ee taxanihii buugga loo yaqaani Can't Hurt Me. haddii aad nagu cusubtahay saaxiib nagu soo biir, haddii aad hore noola joogtayna muuqaalka like noo saar. waxaana rajaynayaa inaad wax badan naga faa'iidi doonto. muuqaalkiina maanta waxaan kaga hadli doonaa qodob aad iyo aad u muhiim ah oo ah sidee aad ugu bedeli kartaa xanuunka iyo dhibaatooyinka iyo caqabadaha ku qabsanaya awoodda aad markaasi u gaari lahayd meesha aad hiigsanayso. waxaad ogaataa mar kasta oo ay nolosha kugu adkaataan ba caqabada ku qabsadaan, laba option oo keliya ayaa ka hor yaala oo ah in aad markaasi wajahdo oo aad isku daydo shaygan si aad xalkiisa u keeni lahayd, ama markaasi inaad ka cararto shaygaasi misana aad ka fogaato dhibaatooyinka uu shaygaasi kuu keenay. dhibaato kasta oo kaa hor imanaysa waxay ku baraysaa waxyaabo cusub sida samir iyo inaad waxyaabo badan oo markaasi hore aanad u aqoonin aad ka kororsato. ayaa waxa ay joojiyaan marka ay la kulmaan dhibaatooyin fara badan, balse waxaad ogaataa mar kasta oo guuldarradaadu badato isla barta ay guuldarradu ka dhacday ayaa waxa kaaga bilaabmaya safar cusub oo aad markaasi u jahaysanayso dhinaca iyo guusha. balqiyaas laba qof oo markaasi isku shaqo ah, mid ka mid ah labadaa qof waxaa haysta shaqo ama markaasi culays ka tan badan oo mid aan weligii hore u arag. wuxuu isku dayayaa inuu xalliyo dhibaatadan, soo kalena uu raadiyo xalka dhibkan, halka ninkan kale uu isku dayayo maadaamuu dhibaato badan dareemayo maskaxdiisu ay ku bushkaraynayso inuu shaygan iska daayo maadaama uusan ahayn shay uusan hore u arag. taas macnaheeduna ay tahay inay ku adkaan doonto inuu shaygan xalliyo. haddaba waxaad isweydiisaa mar kastoo dhibaato ama caqabad la kulanto inta aad ku guda jirto safarkaaga nolosha, tani maxay cashar i baraysaa? midaasi maskaxdaada waxay u sahlaysaa in ay ka baaqsato oo ay markaasi noqoto mid u heelan, soo kalena doonaysa in ay mar walba guulaysato, beddelkeedana ay u samayn karto wax kasta oo ay kaga hortegi karto inay guuldaraysato. haddaba saaxiibadada muuqaalkan cashar ka baranayso waa inuu noqdaa midkani. ha ka cararin guuldarrooyinka, waayo mar kastood guuldaraysato isla barta guuldarradaadu ka bilaamatay ayaa waxa kaaga bilaabmaya safar cusub oo ah kii aad ku gaari lahayd guushaada. sidoo kale waxaan jeclaan lahaa inaad nala wadaagto maxay ahayd caqabadii ugu adkayd ee noloshaada ku qabsatay ama ku soo martay misana maanta aad ka gudubtay. haddaba saaxiibayaal muuqaalkiina maanta intaas uga eegaya, waxaan rajaynayaa inaad wax badan ka faa'iideen. haddii aad nagu cusubtahay saaxiib nagu soo biir si aad xogo badan uga faa'iido. haddii aad hore noola joogtayna muuqaalka like noo saar.